kulan wacan daawaday waxaad ku soo dhawaataa janaalkeena leewaya filmis oo aad kaga barateen inaad ka daawataan warbixinadii la xiriira aktaryaasha ugu caansan Hindiya iyo kuwooda haatan u halgamaya inay noqdaan aktara magac ku leh Bollywoodka. haddaba haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena ama janaalkeena leewaya filmis fadlan subscribe noo dheh, comment ka baxso, like ta saar, sidoo kalena gambalaalka furo si aad u hesho warbixinada ugu dambeeya ee halkaan aan soo dhigno. warbixintana maanta waxaan ku eegi doonaa jilaaga lagu raadista badan yahay Google-ka laguna yeero The Energy One ama qof tamar u saaxiib ah. qof kale ma ahay waa Ranveer Singh, waa jilaag guul u saaxiib ah. waxaana lagu xasuusan doonaa dururka Jiro Mastani iyo Gali Boy oo abaalmarin badan ku qaatay. xidigan ayaa ka hadlay in rabitaanka laga dhabeeyo ay muhiim tahay guulna ee ku horseedayso. haddaba warbixintan waxaan ku eegi doonaa hadadii dhiiragelinta ahaa ee Ranveer Singh jilaaga u dhaxa atirishada Dhabtii. wax walbo aad kalgacal u qabto ka dhabey adigoo adeegsanayo wax walbo aad awoodo iyo qalbigaaga, maxaa yeelay hal nool ayaa lahaa doontaa, waana inaa ku dadaashaa inaa mid ugu sareyso aad ka dhigto. ha ka cabsan guuldarada, intaa wadada nolosha aad ku jirto way dhici doontaa haddii aad iska dhiciso si kugu filan oo aad is adkeyso si kugu filanna adkeysiga aadna lahaato. nafsadana aad aaminto waad jibinaysaa, waana sameyn doontaa haddii ay niyadaada ku jirto amaba ay ka timaado niyadaada. waa sax, hana u maleynin inaa wax walba ay kaga farabaxsadeen ama aysan suurtagal ahayn inaad gaarto. ogow haddii aad sameyn karto taasi, fursadooyinkeyga milyanka ah ayaan hal iskugu keenaa, waana maamula, waan sameeyey wayna hirgashay. dabcan nasiib ayaan helay, laakiin waxaan sameeyey nasiibkeygga. xidiga oo hadalkiisa sii wataya dhinaca kalena wuxuu yiri, waxaan nafsadeyda dhigay meel aan ku heli lahaa nasiibkeygga, waana Hubey Dhabtii. waxaan nolosheeda ka soo waran kartaa inaa ahaado geesiga filmada Indiya. wayna ahayd eriyadeyda, laakiin waxay ila muuqatay in aad u gaari karin ilaa aan ka helay aaminaad ah inaan aqbalo guuldarada, laakiin inaan aqbalin inaan isku dayin. waxaan rabaa inaa geesi ku noqdo, ayuu yiri xidigani. ugu dambeyn xidigani ayaa waxa uu sheegay, waxaan rabaa inaa kor ukac ugu noqdo dhiiragelinta iyo waxa uu qalbigeygga idhahaayo, waana hubaa inay shaqeynayso hadii uu jiro dad dhalinyaro ah oo dhageysanaya waxaan sheegaya hada, raac qalbigaaga oo ka dhabey rabitaankaaga, waxna ha ka cabsan, wax walba waa macquul, ayuu xidiga hadalkiisa ku soo xiray. xidigani ayaa guule ka gaaray film jilista filmadiisa ugu dambeeyay sida Gali Boy, Jiro Mastani, Badmafat ayaa guule gaareen. xidigani ayaa abaalmarin qaali ah ku guulay sida Filmfare Best Actress oo xidigani 2 sano helay. haddaad ka hesho warbixintaana la wadaag asxaabtaada.